المهم كل 960 markaan madax banaanaanay jiilkii ama generationkii xukunka inoo qabtay fiiriya marka aqliyadiisa isu bedeshay dastuur bay dajiyeen ninkii u baahan dastuurkii wakaas koobigiisa waan hayaa 960 la dajiyay laakiin hadda guddiga federaalka Itoobiya doorashooyinka shaqeeyaan ku aqoonsan yahay dastuurka Itoobiya la aqoonsan tahay Itoobiya nimadana kama doodsanba ma qaadan kartid baasaboor kale Itoobiyana tahay sidaas ka soconaysa waxa may kala duwan dastuurka waxa ku qoran ya aniga ii adeegaya oo ilaa qodobka inta ana waad ku go'i kartaa federaalka qowmiyadaha ana waad qaadan kartaa erayo waxa ka soo qaatay idin tusaya ummadii Soomaaliyeed si isu bedeshay intuu isticmaar ku haystay faqrada koobaad waxa ay leedahay Soomaaliya waa dawlad madax bannaan oo dimuqraadi ah eray jiray ma ahayn 1987 ninka Soomaaliga hadii la weydiin lahaa dimuqraadi muxuu yahay muuna aqoon laakiin generationkii Talyaaniga iyo Ingiriisku ay soo tarbiyeeyeen waxay fahmayaan dimuqraadiya waxay tahay dimuqraadiyana saad ogtihiin waa mabda diinta islaamka ka soo horjeeda nidaam ahaan dastuurkooda waxa kale oo ku cad yahay alwalaa'u lil wada Itoobiyadu waxa uu meena dalbeenba dhinaceeda waxay dhaheen ma ogoshiin dastuurka inuu inoo noqdo referensiga ama meesha aan isla noqonayn qof walba walaagu waxa weeye waxa aad u gargaaraysa iyo waxa aad u dhimanaysa iyo waxa aad taageeraysa iyo waxa aad u nooshahay waxay dhaheen waa wadanka ereyga ma fahmi jirin ninka Soomaaliga ee 1987 noolaa wadan wax laga walaa loo haya ma fahmi jirin ilaahay iyo diin buu fahmi jiray waxa kale oo dastuurkan ku qoran faqradiisa 29aad aqeedada iyo diinta qofka Soomaaliyeed uu doon u qaadan karaa waa erey cusub oo jiri jirin dadkii Soomaaliyeed horena inay fahmi jirin runtii dastuurkani waa kii la soo saaray 1960 saddex sano kadib ereyga waa la bedelay oo waxa lagu bedelay diinta islaamka ahayn Soomaaliya lagu ma fidin karo laakiin waxaan rabaa inaan idin tuso qofkii Soomaaliga ee maalinta madax bannaanaana xukunka qabtay soo u fakarayay inuu ahaa dad uu isticmaarku soo tarbiyay oo tarbiya islaamiga aan ku soo dhismin